السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكو soo noqdo wanaagsan oo wacan dhamaantiin oo salaamaya waxa leeyahay soo dhawaada magacaygu waa Najax halkaad igala socotaan waa Najax channel walaalihii qaaliga aan jeclahay markasta iyo markasta aad joogtiin insha Allah ina caafimaad qabtaan baarjiinaya asxaabta cusub soo dhawaada la asxaabta hor aad u nahsantihiin waa maanta iyo qiso kale qisadan waxay ka dhacday maxay tahay magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaalida insha Allah intaan qisadeeda la wadaagina sidoo kale waxaan ka codsanayaa subscribe isartaan like farabadan iska saartaan marka fiidiyoga aragtaan ma idin soo gaaro sidoo kalena gabalka afrataan si markasta noqotid daawada ugu horeeya ama qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaalkani aad baa mahadsantiin walaalay qaaliga waxa jirtay hadda ka hor qiso ka dhacday gobolada Soomaaliya magaalo kamid ah ama gobol kamid ah qisadan waxay tiri gabadhani aniga gabadhiga ma sheegin laakiin gabadha qof ay aad isugu dhow yihiin baqashadayga sheekaysay waxay tiri gabadhani walaashay waxay ahayd bay tiri maxay tahay gabadh yar oo maxay tahay markaas dhalinyaro soo kacaysa waxaanay isbartay bay tiri wiilkii way isjeclaadeen sheekaysi dheer jacaylkoodii waxa la gaaray xilligii ka mid dhalin lahaayeen noloshooda maartay ay abuuran lahaayeen awlaadood arki lahaayeen mustaqbal bay samaysteen reer mildiga bay noqdeen sidoo kale wiilku wuxuu iska hawiil iska danyara nolosha qurux badan oo magaranaysa high class kuma jirin wax iska had noloshooda iska normal yani maalintii wuxuu soo heli jiray oo kaliya waxay maanta cuni lahaayeen waxay tii noloshooda waxay iska ahayd waxay tii hiblaayada walaashii uu iskaga faraxsanay nolosheeda sidii bay waxaan ku wuri maxay ku noolaayeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala muddo markii ay caruur badan Ilaahay siiyay ilaa meelaha 7 caruura markii Ilaahay siiyay oo muddo badan wada noolaayeen wiilkii ila qof walba arsaaqadiisa masha Allah Ilaahay halkii ma taagnaanaysa yani way kordhaysaa oo shaqadii markuu ka shaqeyn jiray ayaa maxay ahayd toole waxay noqotay high class yani maanta kadib soo kordhaysay alxamdulillah wuxuu noqday nin hantiila ah wuxuu noqday nin isku filan wuxuu noqday nin shirkada leh nin magarsasaga loo shaqeeyo maadaama shalay ahaa qof sab shaqaale ah oo wuxuu ahaa kuulis oo taqaaniin laakiin hadda wuxuu noqday engineer buu noqday meesha Allah tabarakallah waxay tiri walaashay gabadhii guri weyn oo kaalay arag u dhisay shaqaalo qabtay caruurteeda waxbarashada kaal arag waxay tiri maalmaha kamid ah oo sida nolosha iskiga jira ayaa waxa dhacday bay tiri gabadh shaqaale ah bay qabsatay gabadhina gabadh iska yar dhalinyaro qurux badan iskana magarasa bashaasha gabadhii markay qabsatay waxay tiri gabadhii ayaa muddo shaqaynaysay gabadhii shaqaalaha ahayd iyo ninkii guriga lahaa ay isfahmay magaranaysa yani xiriir hoose dhexdoodii ka bilaabmay ninkii gabadh ismay guursan laakiin wada sheekaysi ayaa dhexmaray okay gabadh waxay tiri marka wadankeena waxa jirta muddadan maadaama sheekadii bir hore dhacday waxa jirta habluhu markii family-da ama reeraha Soomaalida u shaqeynayaan waqti baa la siiyay aylkooda ku soo aagaan ama wax ku baran karaan ama meelaha ku aadaan marka waxa jir gabadhaani ama xilm garas ay ku shukaansi tagto wada qofka ay la socoto ama dam garas maadaama gabadh mustaqbal u baahan iyadoo ay tahay yani ay ku sheekaysato marka waxa jir gabadhan habeenkii way bixi jirtay habeen walba inanta gurigan uu isku fiicnaayeen habeen walba waxay tir dharkeeda alaabteeda dahabkeeda ka qaadataa walaashii macaanay balan baan leeyahay qofba isku fiicanahay asbaranay waa kaas waxa u baahan alaabta inay ii dhiibtid habeen walba gabadha alaabta ka xirataa dharba ka qaadataa waxaan ku guur xilada guriga timaada habeenkii markii xilada guriga timaado waxay soo laabato iyadoo casho sidoo magaranaysa safaar iyo magaranaysa alaabo maxay ahayd toole malgaraysan hadiyada oo kale gabadhi waxay tiri sidii muddo ahayd habeen walba u bixi jirtay ama habeen dhaaf u bixi jirtay sidii waxay muddo ahaatay waxay tiri gabadhii waxba may dareemin guriga lahayd iska qof magaranaysa wax iska had normal wax isla gabadhan waqtigeeda iska qaadan just doomaba jeedin bismillah bada gabadha ama waa ku qiyaamaysa ama ninkaaga u baxda ama yani afaaraha maba ka fikirunba marka waxay tiri walaashani aniga waxay tiri maba ku jirto waxaas gabadhana muddada waxaasi waday
muddo markay ku jirtay waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah dabeetana gabadhii guriga lahayd iyo ninkiiba islaayay. Gabadhii iyo ninkii markay islaayeen gabadha way tutay roorkoodiiba aaday. Markaa gabadha caruurta waxaa u joogay rooraan sida ilaa ilmo 10 jir ah oo kale, ilmo yar 8 jir, ilmadaadu saas ugu xigoo kale lahayd. Markaa gabadha shaqaalaha ahayd badi gurigii ay kaga tagtay xukata walaal ninkayga isku dhacnay ilmahayga iyo xafid iyo ilaali oo kale dhahday. Gabadhu way tagtay. Markii ay tagtay waxa dhacday maxay tahay ninkii gabadha ma soo celin, kamanu daba tegin, manuu dooninba halkii caadada inuu gabadha soo ceshada guriga soo celiyay caruurteeda kamuu daba tegin. Gabadha Soomaaliyeed ahayd ee shaqaalaha ahayd baa iyadana gurigiisii haysay, ninkii caruurtii dhammaan iyada isku wareegtay. Iyada ayaa waxay ka ahayd hooyo, iyada labadii boos buu buuxisay oo reerkii dhamaystirtay. Ninkana dee wuu isku joogtaa. Adigu gabadha waxa dhacday maxay ahayd shuux fara badan sida jiraanka oo kale ama ciyaalkii isbedel arkeen waa bahoodo gabadha markasta la hadlaayo, la farka ciyaarayo, la qoslaayo, la sheekaysanaayo sida micnaha ma garanaysaa xaaskiisa oo kale. Markaa waxa dhacday gabadh jiraanka ama dad jiraan ka mid ah ayaa gabadhii guriga lahayd ee caruurta dhashay la hadlay. Gabadhii baa loo sheegay. Gabadha markii loo sheegay waxa lagu yiri Hiblaayo ma waxa ogtahay gurigaaga wax ka dhacay ma ogidba, adiga waa iska maqan tahay, ninkaaga soo daba tegin. Sawirkaaga soo daba tegi wayn waxay tahay Hiblaayada aad gurigaaga aad ku haysatay ilaa waa mas abees naagta ee gurigaagii caruurtaadii reerkaaga la wareegtay iyadana haysata, ninkaagii baana ma garanaysaa isku joogta sheekadu ama ma garanaysaa labadooda isugu dhan tahay. Markaa Hiblaayadii way soo carartay gurigeedii way timi. Markii ay timi ninkii ma ogeyn waxa dhacday waxay tiri waa leeyahay ninkii bay la hadashay horta. Ninkii markii la hadashay ninkii bay ku tiri waa leeyahay adiga wada hadlaan khilaafaadkii wixii dhexdooda yaalay waa la xaliyay. Gurigii bay ku soo noqotay way iska aamustay. Isla maalintiiba waxay qorshaysatay gabadha inay guri ka saarto. Waxay tiri waxbay soo qaadatay nabar oo kale ama tib ama xawaash ama wagar waxa uu taqaanid oo kale. Gabadha markay soo qaadatay Hiblaayadii waa qolka loogu yeedhay. Hiblaayo kaale waxaan kuu sheegi rabaa. Wuu timi waxay ku tiri walaalay dhigiso maxay tahay warkaaga waan hayaa waxa ma samaysan samaad sameeyeen. Ninka u bixi jirtay 9 baad alaabahayga aad u xidhin jirtay dharkayga dahabkayga ninkaygu Sooma aha way iska diiday. Marka adigu way ogtahay gabadhu waxa la yiri waa qaraacday madaxa ay waxaan kugu wada sonkorta kaga dhigtay goobaasi ka saartay. Bacdeen alaabtii iyo gabadhii iyo wixiiba dibadda u soo saartay iyadoo maartay dibadda u soo fardhinaysa alaabteedii naagtiina oo dilintoo dhaawactay dibadda taala ayaa jiraankii baa maxad isku soo baxay. Ninkeedina waqtigu iimaanayay bay ninkii baa yimi. Ninkii baa ku maxaa sameynaysaa waxay ku tiri wax walba ogahay adigana maxay ahayd toolay dambi adiga gashay waad qiyaantay naagta gurigeyga aan keensaday oo maski igu noqotay oo gadaal iga qanintay oo ilmahayga iyo reerkayga aan ku aaminay ayaa adigana maxay ahayd toolay ana ogeyn labadina waa qiyaanteen camal. Marka waxay tiri gabadhii ninkii baa ka qabtay. Markuu ka qabtay gabadhina waa la gaxay waa la daweeyay. Gabadhina waa la xaal mariyay. Iyada waxay codsatay oo tiri ninka saas ii galay aan nolosha silaaca ku soo samray maantana shaqaalii guriga uu joogay micnaha ka dhex bilaabay mabadiinay mabarabiba. Marka waxa dhacday maxay ahayd in dhexdooda la galay khilaafaadkooda la xaliyay alxamdulillah. Inkastoo rabtayba in maartay ay ku kala tagaan laakiin meesha awlaad timaado awlaad joogto maahan in reerkaas lagu burburiyo si yar oo fudud. Isaguna qaldamo waa ilaahay alxamdulillah. qaladkuna uu ka dhacay naagtuna shaydaan bay ahayd qof xun bay ahayd ma garanaysaa ma wanaagsaneen hadii wanaagsantii waxa ma bay sameeyeenba ma fahanteen. Markaas qisadana maanta intaas way ku eegtahay gabadha reerkeedii oo dhaqanaysa alxamdulillah. Gabadha kalena caafimaad waxay yar jigjigoon baa gaadhay. qisadana maanta intaas way ku eegtahay insha Allah waxaan ka baran karnaa sidoo kalena in maaragtay aan ragga Soomaaliyeed aanay gabdhahooda aanay u doomarin gabadha shaqaalaha guriga joogta waxaas ma fiicno wax qurux badan ma ahan. Gabadhaada ku soo samartay shalato ee kula soo martay dhibaatada iyo dhib iyo dheefba kula soo qaybsatay inaad maaragtay ku dutalaabsatiin ma qurux badna.
إن شاء الله تعالى قبل يمكن حد لا هي شقالة مركز تكفي هذا قرقي لإلالية قبل وحلا صعته وهذا مقرتين سكيل أنا ذلايا هذا الناق أدونس إن هذي شقة سنة ناق ميتوبيان أما الناق فولحن هذي شقة ناق روح بدن بطاط إسكاب إلاليبا والناق روح بهذا قرقي ستيد حرف كان مارتيا وبالآذن waxaan ku yiri iska ilaaliya